waxaa maanta soo gaaray magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika safiirka Soomaaliya loo soo magacaabay South Africa Said Sharifi kaasoo dad badan ay ku soo dhameeyeen garoonka Johannesburg. soo dhaweyntiisa ayaa ka qayb qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Saasa. dadweynaha ku nool South Africa ayaa ku faraxsan inuu soo gaaro danjiire ka socda Soomaaliya dalkani. waa kuwan dadweynaha iyagoo fikradooda ka dhiibanaya soo gaaritaanka danjiiraha wadankani. waxaan dareemayaa nin geed weyn baaxad leh qawow harkiisii harsaday baan dareemayaa wixii aniga dhib ahaa oo ay qaban lahaa waxay ku dhacayaan calankeygii safaaradaydii iyay ku dhacayaan laakiin aniga waxaan noqonayaa marka ummad badan baa hadda joogta waddanka والله aad baan ugu faraxsanahay waa arrin guul ah aan aaminsanahay Soomaali oo dhan gaar ahaan dadka South Africa ilaa 20 sano ku dhawaad bay dadka South Africa meesha ku noolaayeen intaana hadda dad iska rafaadsan oo dhibaataysan oo wax walba in la helo safiir Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida ee aragnay wali dhibaatooyin shay ku hadalo oo maarna wali dheeftay aanshan hadii la helo safiirka ayaa markii uu soo caga dhigtay garoonka kula hadlay dadkii soo dhaweynaya halkaasi. waa kana safiirka oo ka sheekeynaya maatinkiisa waxa uu ku salaysan yahay. bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in muddo dheer kadib riyadaad ku riyoonayseen iyo himiladaad idinku aad ku hayseen maskaxda inay dhawowday oo aad muddo dheer safaaradaad sugayseen oo aad abuurteen oo aad idinku u doodi jirteen inay dhawowdo kadibna la calaaqaad rasmi ah oo diblomaasiyad ah labada dowladood ee Soomaaliya iyo South Africa ay kala saxiixdaan kadibna halkan loo soo magacaabo safiir dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa matalaya oo idinkuna aad ka mid tihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad noo soo dhaweyseen waadna sheekaysan doonaa aad iyo aad baan danjiiraha ayaa markii dambe loo soo kaxeeyay xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Johannesburg. safiirka ayaa ka qayb galay kulan ciyaareed lagu soo dhaweynayay maatinkiisa kuwaas ay soo qabanqaabeen guddiga sportiska magaalada. waxaa meesha ka hadlay gudoomiyaha sportiga Cabdirasaaq Diyeeshe oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin wadankani soo gaaro safiir Soomaaliya ka socda. safiirkan cusub sidii ugu baahan yihiin safiir cusub oo Soomaaliya yeelato waxay u sameeyeen munaasabad qaali ah sida arkaysaan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciyaartoyda sharafta leh ee ka soo qayb gashay munaasabadda qaaliga ah bahda saxaafadda. gabagabadii ciyaarta ayaa koob ku tuusiyey danjiiraha kooxda ku ciyaaraysa magaca jaaliyadda Saasa. Xuseen Aboke TV-ga caalamiga Royal 24 magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika.